sida uu afayeenka maamulka gobolka Banaadir uu xaqiijiyay warbaahinta 2 qof ayaa ku geeriyootay halka qof kalena uu ku dhaawacmay qaraxii saakay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan dhabarka dambe ee barxadda iskaashatada gaadiidka sidoo kalena aan ka fogeyn guriga hooyooyinka ee degmada Xamarweyne 2 qof mid kamid ah waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Cabdishakuur Xuseen Cabdi oo loo yaqaanay Jaabir iyo darawalkii gaariga wararka qaar waxa ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid la dhigay wadada dhinaceeda inkastoo mas'uuliyiinta dawladda ay sheegeen inuu ahaa qarax lagu xiray gaariga haweenay goobjoog u ahayd xilliga uu qaraxa dhacay ayaa sharaxaysa waxa ay indhaheedu qabteen qaraxa kadib walaalahay in xaafada diriskaana ay dadku u dhawaayanahay in qarax xoogiisa ku soo baxnay in kadibna gaarigan oo ololaayo gubanayaan ku soo baxnay waxa masiibo rabaani ah dhigi karna Ilaahay naga qabto waxaan sameeyay ummadii haliyay kasta naga laaynayo Allah naga qabtaa dhigi lahayn gaariga oo ololaayaan aragna kaliya iyo qofkii oo gubtay oo dhamaaday oo la arki karinbo marka maxaa la sheegay gaariga inta khasaare aragteen wallahi hadda 2 qofoodan maqalnay intaan hadda dhagayna ku maqalnay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in al-shabaab ay ka dambeeyeen qaraxan si ay falal amniga liddi ku ah ay u sameeyaan balse ciidamada ammaanka ay markasta ku dadaalayaan in ay amniga sugaan waxa halkan maanta qarax gaari ku geeriyooday Allah u naxariisto sarkaal ka tirsan qaybta guud ee gobolka Banaadir Cabdishakuur Xuseen Cabdi Dhicishow oo loo yaqaanay Jaabiri sarkaalka wuxuu ku socday gaari yar oo premier ah sida u jeedaan gaarigiisa ayaa waxyaabaha qarxa ee loogu soo xiray waxa la socday 2 qofood oo mid askari yahay iyo qof kale sarkaalku waxa la geeriyooday qofkii kale la socday Allah u naxariisto waxaana ka badbaaday qaraxaasi oo dhaawac fudud soo gaaray askarigii asagana la socday marka goobtan waxa ku geeriyootay 2 qofood askarigii dhaawac ahaana waa hadda caafimaadkiisa la tacaalaya Allah bogsiyo dhaawaciisa inta dhimatana Allah u naxariisto runtii kooxahan argagixisada mudooyinkii u dambeeyaba baacsigooda iyo lagu daba joogay heerarkii u dambeeyay ay marayaan sida laga dareemayaba runtii waxyaabaha mudooyinkan ay wadaana waxay ahayd in gaari ay waxyaabo qarxa ay ku xiraan inay goobaha wadooyinka ay dhigaan waxyaabahan qarxa gawaarida ku soo booda laakiin ciidamadeena ammaanka oo iyaguna ay ku guuleystay inay fashalayaan waxyaabo fara badan oo runtii dhibaato lagu geysan lahaa shacabkan ku dhaqan gobolka Banaadir waan ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay sii wadaan waxaan kale u mahadcelinaynaa taliska booliska degmada Xamarweyne oo runtii markii halkaan ay wax ku dhaceen ku soo baxay halkaan markaa gacanta ku dhigay ilaa iyo meedadkii laga qaadayna hooshii ku jiray dadaalkoodiina waan kaga mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed mar walba waxaan aan ku wargelinaynaa ama kaga digaynaa inay fiiro gaar u lahaadaan gawaaridooda halkay dhiganayaan inay laamaha ammaanka la shaqeeyaan inay ka xadiraan taxadir dheeri ah ay sameeyaan falalka ay damacsan yihiin kooxaha argagixisada gaarigan ma qaraxa muxuu ahaa wadada la dhigay ma gaarigu ku xirnaa muxuu haafeen way sidaan idin sheegaba gaarigan sarkaal watay qaraxa waa lagu soo xiray qarax lagu soo xiro ahaa ma ahayn mid wadada la dhigay